qisadana waxay ku saabsan tahay wiilkan dhalinyarada ah oo lagu magacaabo Zhu. Wuxuu u dhashay dalka Taiwan wuxuuna ku noolaa caasimadda Taipei ee wadanka Taiwan. Wiilkan dhalinyarada ah 1 September 2017 ayuu wuxuu go'aansaday inuu aado magaalo kale oo caasimadda ka fog oo ku noolaa wiil saaxiibkiisa booqasho iyo dalxiis ayuuna rabay inuu halkaas u tago. Alaabtiisa wuxuu xirtay kadibna wuxuu aaday magaaladii uu saaxiibkiis ku noolaa. Saaxiibkiis ayuu halkaas ugu tagay dhowr maalin ayuu la joogay. Markii uu hawlihiisa dhamaystay 4 September 2017 ayuu wuxuu go'aansaday inuu caasimadii dib ugu laabto. safarkiisa uu caasimadda ku aadaya wuxuu ku beegnaa bacda al-cisha wuxuuna ahaa safar hameen ah. Shandadiisa ayuu soo qaatay wuxuuna imaaday busteejadii basaska. Laakiin markuu busteejada imaaday wuxuu la kulmay wax uusan filin. Wuxuu arkay busteejadii dhammeed oo cidla ah waxdada aysan joogin. kaliya wuxuu arkay dhowr bas oo meelo kale u socda oo dad markaas diyaarsan oo basaskaas raacaya ay galeen. laakiin baska caasimadda ee asagu uu ku qornaa uu maran yahay hal qof oo kaliyana uusan saarnayn. laakiin xilligaas baska daaqadaha ayaa u furnaa, darawalkuna waa uu dhex fadhiyay. darawalka ayuu tagay aaway dadkii ayuu ku dhahay. wuxuu yiri ma ogi dadkii waa ay imaanayaan. asaguna baski ayuu gadaal u galay wuxuuna fariistay kursi VIP ah. kursi asagu markaas uu doortay oo uu isdhahay kursigan ayaa kuu fiican ayuu boorsadiisii dhigtay. halkii ayuuna kursigii iska fariistay. muddo saacad ku dhow ayuu halkii iska joogay. hal qof oo baski soo galana waa uu waayay. ugu dambeynna darawalku baski daaqadaha ayuu u xiray, baskiina wadada ayuu fuulay oo waa u dhaqaaqay. cabsi badan ayaa soo wajahday wiilkan dhalinyarada ee Zhu maadaama baskii dhammaa caasimadda u baxayay ee la rabay inuu buuxo uu maran yahay oo kaligiis uu dad rakaab ah ka saaran yahay. asagoo yaaban oo sidii u cabsanaya markii cabbaar magaaladii laga socday oo uu basku wadada saarnaaday ayuu si lama filaan ah gadaashiisa wuxuu ka maqlay islaan weyn oo waayeela qufaceed. islaan weyn ayaaba gadaashiisa ka qufacaysa. baska markii uu soo galayayna kuraasaha oo dhan waa uu fiiriyay oo hal qof ma uu saarnayn. haddana gadaal ayuu fiiriyay, kuraasta ka gadaalayda oo dhan waa ay maran yihiin. kursiga ayuu ku seexday, waa uu ducaystay oo kursiga ayuu isku dhajiyey. ugu dambeyn hurdo ayaa ka soo dhacday oo halkii ayuu ku hurday. mar uu wax badan hurdayay ayuu soo kacay, telefoonkiisa ayuu soo qabtay oo saacadda ayuu fiiriyey. wuxuu ogaaday muddo 4 saacadood inuu jiifay. kadibna wuxuu dhahay alxamdulillaah, cabsidii ilaahay ayaa iga waday, masaafo dheerna waa aan soconnay. intaas kadibna saaxiibkiis ayuu wacay oo uu la sheekaystay. waxauna u sheegay inuu keligii saaran yahay baskii caasimadda ee dadkii oo dhan la rabay inay raacaan. saaxiibkiis wuxuu u sheegay kuraasta baska oo dhan inay bannaan yihiin, midka asagu uu saaran yahay maahane hal qof oo kalena uusan la socon. saaxiibkiis waa uu rumaysan waayey. si uu saaxiibkiis u qanciyo telefoonkiisa ayuu la soo baxay, kuraastii baska oo dhan ayuu duubay. muuqaalka ayuu damcay inuu u diro, laakiin muuqaalkii wuxuu ahaa muuqaal mugdi ah. laakiin ninkan dhalinyarada ee Zhu wuxuu watay kaamiro digital ah maadaama uu ahaa nin dhalinyaro ah oo sawiraanta iyo muuqaal duubista iyo waxaas jecel. kaamiradiisa ayuu la soo baxay wuxuuna si caadi ah u duubay baskii oo dhan kuraastiisii bilow ilaa iyo dhammaad ayagoo si fiican u muuqda. wuxuu ka arkay kuraasaha korkooda oo ay kaamiradu qabatay gacan qof bini'aadan ah oo saas u soo taagan si aad sawirka uga jeedaan. gacantaas qofka bini'aadamka ah oo kor ka soo taagan ayuu muuqaalkii ka arkay. waxuuna ogaa baska oo dhan inuu khalli yahay oo uusan hal qof saarnayn. asagoo naxsan oo argagaxsan ayuu muuqaalkii telefoonkiisa ku shubay. laakiin inta uusan saaxiibkiis u dirin telefoonkii ayaaba damay oo sam dhahay. telefoonkiisana dabkiisu wuxuu ahaa 100% oo caawa dhan waaba uu hurdayay ma uusan isticmaalin. hal mar ayaaba telefoonkiisii la damiyey. cabsi kale oo hor leh ayaa soo wajahday ninkan dhalinyarada ah. kursigiisii ayuuna isku adkeeyey. laakiin wax yar kadib hareerihiisa waxaa ka bilaabatay shanqar uusan filayn. gadaashiisa wuxuu ka maqlayaa hamsi, wax hoos u xamxam leh, wax buuqaya laakiin dad caadi aan ahayn oo uusan si fiican u maqlayn. qolo hoos u xantamayda oo uu buuqoodu asaga dhagihiisa soo gaarayo. intaas kadib shanqartii waa ay sii badatay. waxaa bilaabatay in kuraastii lala ruxo, inuu dareemayo hareerihiisoo dhan inay dad socsocdaan uusan u jeedin. kuraastii in lala kilkilayo, baskii oo dhan la ruxayo. asagoo naxsan oo yaaban ayuu hal mara baskii istaagay, laakiin aad ayuu u sii cabsaday. waa uu la yaabay baska waxa taajiyey. laakiin nasiib wanaag wax yar kadib wuxuu maqlay darawalkii oo dhahaya waan gaarnay ee soo deg. waa u yaabay asagoo isdhahaya wax yar ayaadba socoteen. bannaanka ayuu fiiriyey, saa waxa ay taagan yihiin waaba busteejadii caasimadda. alxamdulilah ayuu dhahay, waa uu soo degay. inta uusan baskii ka degin darawalka ayuu u tegey. kadibna waxa uu u sheegay waxyaalihii uu baska dhexdiisa kala kulmay oo dhan. markii ugu horreysay inay haween waayeela gadaashiisa ka qufacaysay markii la gaaray 11 September 2017 waa hal asbuuc kadib markii uu asagu dhacdadan la kulmay.
maalin asagoo telefoonkiisa iska isticmaalaya oo Facebook iska isticmaalaya ayuu wuxuu arkay dhacdo naxdin leh oo la soo baahiyay bas rakaab siday oo ku socday isla wadadii caasimadda ee uu asagu ku yimid ayaa halkaasi ku gadoomay oo ku gubtay waxaana ku dhintay 6 ruux halka 11 kalena ay ku dhaawacmeen. laakiin Zuu markii uu dhacdadii fiiriyay ee uu arkay baska sawiraantiisii xogtii baska wixii oo dhan markii uu arkay wuxuu ogaaday inuu baskan yahay baski uu asagu ku yimid wixii uu asagu ka soo badbaadayna ay dadkan ku dhaceen. qisadan waxay ka dhacday dalka Taiwan waxaana la sheegay inay tahay mid xaqiiqo ah laakiin anigu ma ogi xaqiiqo iyo been waxa ay tahay waan maqlay waana aan ku soo gudbiyay. haddii aad rabto inaad ogaato run iyo been waxay tahay soo weydii dadka u dhashay dalka Taiwan.